bismillaahi raxmaani raxiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahyaha ciyaaraha barnaamijkan galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh mahadsanid ayna ku bilownay sida ay qorayso La Gazzetta dello Sport kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa xiiseynaysa saxiixa qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Isco kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa diyaar u ah in 29 jirkaan ay iska fasaxay xagaagan iyaga oo doonaya qiimo gaaraya 20 milyan oo euro laacibka xulka Spain iyo kooxda Madrid ayaa heshiiskiisa u dhacaya 2022 bisha June waxaana taasi ay saamaxaysaa in si fudud ay ku hesho kooxda kubadda cagta ee AC Milan ciyaaryahan reer Spain ayaa ku dhameystay kambeynkiisii 2020-2021 isagoo aan u dhalin wax gool ah kooxdiisa waana sababta dhaqaalaha kooxda Real Madrid ay gudoonaysa xidigan ay saaid uga yaraatay qiimihii sanadkii hore duliyaaray dhicida heshiiskiisa ayaa keenaysa in kooxda kubadda cagta AC Milan aysan u helin qaab amaah oo ay kadib iibsanayso waxaana kooxda Rossoneri ay doonaysaa inay isticmaasho xiriirka wacana ay la leedahay maamulka Real Madrid iyo tababarahooda si ciyaaryahankan loogu soo wareejiyo qiimo aad u yar Paolo Maldini iyo Ricky Massara ayaa aad u qiimeeyay 29 jirkaan oo dhaliyay 51 gool 336 kulan oo uu ciyaaray horyaalka La Liga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kooxda AC Milan ayaa sidoo kale ku dhow in Real ay kala heshiiso saxiixa Brahim Diaz ayaa ku soo laaban doona kooxda AC Milan qaab amaah ah waxaana ay ku qasbanaan doonaan inay ku iibsadaan 22 milyan oo euro waxaana ku jira heshiiska qodob sheegaya in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ciyaaryahankani dib ula soo wareegi karto kaliya iyada oo bixinaysa qiimo dhan 27 milyan oo euro markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa laga qoray kooxda kubadda cagta ee Arsenal kooxda Arsenal oo ku dhameysatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii la soo dhamaaday kaalinta 8aad ayaa u muuqata wili mid aan si firfircoon uga muuqan suuqa kala iibsiga balse arintaas ayaa ku dhawaata mid gabagaba ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 2 maalin ka hor soo gabagabeysay heshiiska daafaca bidix ee kooxda Benfica iyo xulka Portugal Nuno Tavares waxaana ciyaaryahankani ay kula heshiiyeen qiimo dhan 8 milyan oo euro waxaana caafimaadka ku maray Portugal ciyaaryahankan ayaa ka soo degay London maalnimadii Jimcaha balse Arsenal ayaana weli si rasmi ah ugu dhawaaqin heshiiskiisa dhinaca kale qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Anderlecht iyo xulkaasi Belgiumka Albert Sambi Lokonga ayaa ku dhow inuu ku soo gabagabeeyo kubiristiisa kooxda kubadda cagta ee Arsenal labada naadi ayaa ka heshiiyay qiimaha ciyaaryahanka lagu la wareegayo balse waxa ay weli isku fahmi laayihiin qodob kooxda Anderlecht ay doonayso in lagu daro heshiiska oo ay rabto in 15% laga siiyo mustaqbalka haddii ciyaaryahankani ay iibiso kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa si diyaar u ah in ay bixiso 5% haddii ay mustaqbalka ay iibiso ciyaaryahankani kooxaha ayaa ku heshiiyay qiimo dhan 17 milyan oo euro oo ay raaci doonto 4 milyan oo euro oo ku xiran qaab ciyaareedka ciyaaryahanka iyo waxyaabo qaar oo uu u baahan yahay inuu ku guuleysto inta uu ku sugan yahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhinaca kale daafaca xulka England ee kooxda Brighton Ben White ayaa isbuucii hore la sheegay inuu ku dhow yahay kubiirada kooxda kubadda cagta ee Arsenal naadiga Brighton ayaa u dhigtay daafaceeda xulka England qiimo dhan 50 milyan oo pound waxaana Arsenal ay diyaar u tahay bixinta qiimahaasi kooxda Brighton ayaa doonaysa in qayb kamid ah lacagtaas oo aad u badan si hor u dhaca loo siiyo bal Arsenal ayaa rabtay inay qaybiso lacagtaasi muddada ciyaaryahanku ku sugan yahay garoonka Emirates warar soo baxay shalay ayaa tilmaamayay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku soo biirto tartanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahankaasi balse dad ku dhow ciyaaryahanka ayaa tilmaamaya in xidigan uu goor hore go'aansadayba inuu ka mid noqdo kooxda Mikel Arteta warar ayaa sheegaya in ciyaaryahankii kooxda ay ka heshiiyeen wax walba oo shakhsi ah labada naadina ay soo gabagabeeyeen wadahadalkooda waxa kaliya ee la sugayana ay tahay in uu soo gabagaboobo tartanka Euro-ga si ciyaaryahanka uu uga mid noqdo kooxda kubadda cagta ee Arsenal dhinaca kalena qadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka France Matteo Guendouzi ayaa shalay ka degay magaalada Marseille isagoo oo caafimaadka u mari doona kooxdaasi ciyaaryahanka reer France ayaa si rasmi ah ugu biiri doona kooxdaasi balse sanadkan ayay ku qaadan doonaan qaab amaah ah oo ay qasab tahay in ay bixiyaan 10 milyan oo pound sanadka dambe si ciyaaryahankaasi ay toos u la wareegaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer France ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda uu kooxdaasi u soo raaco daafaca reer France ee isla kooxda Arsenal William Saliba ciyaaryahankan ayaa amaahdii saddexaad kaga bixi doona tan iyo markii Arsenal ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Saint-Etienne tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Mikel Arteta ayaa la sheegaya inuu doonayo ugu yaraan 5 ciyaaryahan inuu ka mid dhigo kooxdiisa xilli ciyaareedkan
shanta ciyaaryahan ayaana ahayn baa la leeyahay kuwa ay doonayso kooxda inay qaybta bijiga fadhiyaan balse ay tahay 5 ciyaaryahan oo doonayay inay ka mid noqdaan 12 ciyaaryahan ee ku bilaabanaysa kooxda kubadda cagta ee Arsenal. dhanka kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa horumar wacan ka sameynaysa isku daygooda ay ku doonayaan saxiixa 18 jirka xulka France iyo kooxda Rennes Edouard Camavinga. kooxda reer France ee Rennes ayaa diyaar u ah inay iska iibiso 18 jirkan qiimo dhan 30 milyan oo euro maadaama ay ku weyn karto si bilaash ah xil ciyaareedka dambe. ciyaaryahankan ayaa heshiiskiisa u dhacaya xil ciyaareedka dambe gabagabadiisa waxaana midaasi ay soo jiidatay kooxo badan oo saaid u doonayay ciyaaryahankan kuwa oo ay ugu horeeyeen kooxaha Manchester United iyo kooxda reer France ee Paris Saint-Germain. 18 jirkan ayaa sanadkii hore si aad loola xiriirinayay Real Madrid balse qiimaha kooxda Rennes ay dul dhigtay xidigan oo gaaraysa 50 milyan oo pound ayaa dib u riixday kooxda reer Spain balse haatan ay u muuqataa kooxda reer France inay aqbalayso kala bar lacagtii ay sanadkii hore ku doonaysay. ciyaaryahankan da'da yar ee reer France ayaa iska diiday in heshiis cusub uu u saxiixo kooxdiisa waxaana midaasi ay gacmaha ka xirtay naadiga reer France kuwa oo haatan diyaar u ah inay gorgortan ka galaan saxiixa ciyaaryahanka reer France. Camavinga ayaa haatan loo doortay ciyaartoyda xulka France ku matali doonta tartanka Olimbikada ee ka dhici doona Tokyo waxaana bishii la soo dhaaftay August uu ka mid noqday ciyaartoyda xulka France isagoo da'diisa ahayd 17 sano 9 bilood iyo 17 maalin taa oo ka dhigaysa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee abad loo magacaabo xulka France tan iyo 1932. ciyaaryahankan ayaa ka soo baxay akademiyada kooxda Rennes waxaana ciyaartiisii ugu horeysay uu u saftay 2019 isagoo 16 sano jir ah waxa uu u dheelay kooxdiisa 67 kulan oo horyaalka Ligue 1 Faransiiska ah. kooxda Manchester United ayaa soo gabagabaysay saxiixa Jadon Sancho isbuucii la soo dhaafay waxaana shalay soo baxay wararka sheegaya in kooxda ay ku dhowdahay saxiixa daafaca xulka France ee kooxda Real Madrid ee Rafael Varane. haddii Manchester United ay gacanta ku dhigto Camavinga waxa ay shaxdeeda noqon doontaa mid aad u culus xil ciyaareedka dambe. shaxda la saadaalinay in kooxda Manchester United ay ku soo shartagi doonto xil ciyaareedka dambe haddii ay ku guuleysato saxiixa labada ciyaaryahan ee reer France ayaa sidan ah. goolhayaha xulka England ee da'da yar ee Henderson ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono goolhayaha koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. afarta daafac ee sanadka dambe Manchester United daafaceeda matali doona ayaa kala ah Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Rafael Varane iyo Luke Shaw. khadka dhexe ayaa waxaa wada ciyaari doona ciyaartoyda Camavinga, Paul Pogba iyo Bruno Fernandes halka saddexda weerarka ay noqon doonaan Rashford, Jadon Sancho iyo ciyaaryahanka da'da ah ee xulka Uruguay Edinson Cavani. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa doonaysa in qaab amaha ay ku qaadato daafaca midig ee kooxda Manchester United iyo xulka Portugal Diego Dalot. tababaraha cusub ee Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa daneynaya saxiixa xidigan isaga oo ku guuldareystay helidda adeega laacibkani intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Everton. xil ciyaareedkii la soo dhaafay ayay kooxda AC Milan kaga guuleysatay kooxda Everton saxiixa xidigan waxaana haatan uu soo cusboonaysiiyay tababare Ancelotti doonista daafaca midig ee kooxda Manchester United. ciyaaryahankan ayaa sanadkii la soo dhaafay waqti adag ku qaatay kooxda AC Milan isagoo ay ku adkaatay in ciyaaro badan uu safto balse kulamadii ugu dambeeyay oo horyaalka ayuu bandhig wacan sameeyay taa oo ka saaciday kooxda AC Milan in ay ku soo dhameysato horyaalka kaalinta labaad. kooxda Milan ayaa mar kale ka shaqeynaysa sidii qaab amaha ay uga heli lahayd daafacani kooxda Manchester United balse haatan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa la sheegayaa inay ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixiisa. ugu dambeyntiina daafaca xulka Jarmalka iyo kooxda kubadda cagta ee Atalanta Robin Gosens ayaa ka falceliyay wararka la xiriirinaya mustaqbalkiisa kooxda reer Spain ee Barcelona. ciyaaryahankan oo bandhig wacan ku soo bandhigay koobka Euro 2020 oo haatan xulkiisa iskaga haray ayaa waxaa la xiriirinayay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay dalab ka gudbin doonto adeegiisa. ciyaaryahankan oo haatan waqti la qaadanaya qoyskiisa ayaa tilmaamay in xilligii uu ku sugnaa Euro 2020 uu go'aan ku gaaray in aan la wadaagin wax ku saabsan mustaqbalkiisa sidaa daraadeedna uusan waxba ka ogeyn xiisaha kooxaha doonaya isaga balse waxa uu tilmaamay in haatan uu kula qaadanayo waqti qoyskiisa in uu wada hadal la yeelan doono aabihiis oo ah wakiilka ciyaaryahanka una weydiin doono waxyaabaha miiska u saaran. ciyaaryahankan oo kooxda kubadda cagta ee Atlanta si wacan ugu matalay koobka Champions League iyo horyaalka Talyaaniga ayaa soo jiitay kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaana macquul ah inuu bedel u noqdo daafaca bidixda da'da ah xulka Spain Jordi Alba. barnaamijkeena galabtana waa inaga intaa.